Allaha u naxariistay waxaa saaka magaalada Muqdisho ku geeriyootay Dictoraysa Xaawa Cabdi oo muddo dheer ka soo shaqeynaysay horumarinta arrimaha caafimaadka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegay in xanuun degdeg ah uu ku soo booday ay sababtay geerida ku timi Xaawa Cabdi oo ka mid ahayd dhakhaatiirta waaweyn ee Soomaaliyeed. sidoo kale qaar ka mid ah carruurta iyo ehelada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida ku timi marxuumadda oo xarun caafimaad ku lahayd deegaan iyada loogu magac daray oo ku yaalay duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho. geerida ku timi Dictoraysa Xaawa Cabdi waxaa sidoo kale ka tacsiyay qaar ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed. My name is Dr. Xaawa Cabdi. I am from Mogadishu, Somalia. I run a camp nearby that has housed 90,000 internally displaced people. They are victims of Somali's long civil war. I am reaching out to you today because last week our camp was attacked. The soldiers from the local government destroyed the fence we built to shelter the vulnerable people, claiming that the land was not our property. They are destroying our fence because they want to grab our land. The fence cost $48,000. That money we don't have to rebuild. waxa ay ahayd 63 jir wax ku soo baratay wadanka Ruushka horaantii 70meeyadii waxa ayna garab qaban jirtay dadka danta yar. Allaha u naxariistay Xaawa Cabdi wax lagu xasuusan doonaa kaalintii ay ka soo qaadatay howlaha adeegga caafimaadka muddadii burburka.